khiyaano leh wax ugu dartay markuu kala dhacay oo hurday aragtay ay xirxirtay kursi meeshii kula dhacay ku xirxirtay ee mindi u soo qaadatay oo markuu indhaha soo furay oo soo naaxay jiri hayniyo aniga qof aan la xisaabin lama abuwaalanahay gabdhihii labada mintaano sababta u dishay aan rabaa gabdhihii adaaba dishay waxa u dishay iyo sababta u dishay iyo ku dishay intaba inay sharaxdo aan baahana haddii kaleete naftan ku dhaafina muxuu ku jawaabay walaalkeed qisaan balkaali leeysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مركلاتي قصة أيضا وقصة عجيبة وربا قصة وقصة كدارن تعدان فيش وردتك بلا آدنك إلا الشأن اللي بالله دونك إلهي الله أبورا مركا غاركوت أنسلها سبحان الله قصة أنا وحيتها هاي هدي قالوا كوروين هاي nin inaag isqabay oo muddo isqabay hadday isdaaween hadday isbitaal tageen hadday meel kala tageen hadday quraan is saareen hadday wax walba sameeyeen ilaahay owlaad waa sii waay haddana waxay aadeen maxaa dhihi jiray xirada agoonta ilmo yatiinka soo wataysneen ilmo yar xataa ma lahan go-aan labadooda waxay ku gaareen waxay dhaheen ilaahan tabakalanayna khalaas waska dhaafayna sidayna iskulu joogayna alxamdulillah waa daalin ilaa saa xuraadinin ayagoo sidoo iskaga qanacsan sida iskula joogeen ayaa maalmaha ka mid ah hooyada intuu timid tir hooyoy waa ku riyooday waa ku baryahay tiri hadda qaliinka ugu dambeeyay qaliinkaas aad u baahan tahay mar hooyoy su ilaahay owlaad baariyo khayr qabto ku siiyo anna waa ku riyooday inaad owlaad caafimaad qabto oo saalax inuu ilaahay ku siinayo markaan la warkeyga maqal gabadhii hayay tiri hooy waa iska dhaafnay ma naga dhaaftay tiri koogu hore marka dambe markay aragtay inay hooyadeed ku taagantaa musamama ee ku taagan waxay tiri hayi waaye ninkeeda u sheegtay ninku waa ogolaaday sidii ay ku martay qaliinka alxamdulillah markay caafimaaday ilaahay caloosheeda ubaduu ku abuuray alxamdulillah ayadoo la wada faraxsan yahay markii muddo la gaaray ayaa computer la marsiiyey computerka wuxuu soo sheegay laba gabdhood mataana ah inay caloosha ku wato farxad ku darwa alxamdulillah adiga sidii meesha loogu dhowraayay ee loo waadeenay hool xataa qaban loo dhahay ilaahay marka dambe waa kala keenay oo labadii mataan way dhashay labadii mataan markay dhashay aabahood wuxuu yiri labada mataano maadaama ilaahay wax isii yiro xaafadana isku keenay xalfadan dhiga markaas waxay tiri isha xaasidka bila aadanka ishooda maxaa la intay naga dhici lahayd afka ishana qaadi lahayd naga daayay tiri hayuu yiri 3 sano markay gaareen wuxuu yiri wuxuu weynaadeen waxaan u dhigayaa dhalasho hayay tiri dhalashadii yaa la isku wacay xaafadii oo dhan dhalashada markii la isku wacay isku yimideen cidaadii hooyadeed walaalkeed kullu isku yimid dhalashadii ee dhamaatay ee xalfada lagu kala tagay ee reerihii kala baxeen ee gabdhihii seexdeen qolkooda geysay xoogaa kadib ayay ninkeeda is ag fariisteen kadib waxay tiri sidii caadadu ahayd inay gabdhihii soo firiso intaysan sariirteeda tagan ayay way soo baxday gurigeed timid qolkii soo gashay waxay aragtay gabadheeda mid oo kalarkeeda isbedelay ninkeedii wacday waxay tiri kaali bal gabadhan ila fiir gabadheeda ila fiiri waa mid labada mataano hal mitaano waa saqiirtay subhanallah adoogu wala fiirfiiri dhakhtar alla waa dhakhtarku wuxuu cadeeyay mid inay noosha midna ay dhimatay ayagoo qaracsan oo sidii ku joogaan adoo xataa wadna xanuun ku dhacay ee muddo joogaan ee gabadhina mar hore la soo duugay ee gabadhooda kale iska haystaan ayaa walaalkeed wuxuu yiri maadaama aad qalbi xanuun idinku dhacay oo meesha ma fadhidiin ka waran hadda dalxiis aadno ani idin raaco lacagtan aan idinka bixinaa waxay dhaheen way raaceen gabadhina way wateen يعني ما كده رح يصير له عرفت ميل ضباها جرت ضباشي وحده قبل يريد أنا على قلعي ووالكيت ونوين الله تجري هي تري قبل يبيها على قلعي حقام كل جوجني حارك ماشي بس لقيلنا بس قبل يوميت إيه أو تيك على صغيرتي تي لما هرتوايا أو صغيرتي أو عندك وضع سبحان الله أجي بس نحين المهن أبوهات نحتنك أو نحي ونية استاجر ونحن نقول عي وكل انتي قبدي قبدا لشينه
waxay noqotay qof qafiiftay isbitaalka waxaa la geeyey waalida hooyadeedna kabacdigeed iyadana naxtintii waxaa lidhi waxu dhimeen iyadana wadnihiyaa joogsaday allahu raxmado meeshiyaa kusoo hiri ayada iyo walaalkeed banaanku jooga iyo iyadoo isbitaalka waalida ku jirto markay xoogaa ku jirto ay soo roonaatay ayaa walaalkeed oo villo adduunyo lacagta bahabuurta oo kala wadayaabiis ayaa walaalkeeda kasoo baxsaday isbitaalkii markay roonaatay gurigu keenay jira xoolahan intee ka keentay wuxuu yiri xoolahan wuxuu yiri dhaxalkii ayaan xoogaa shaqo ku galay dhaxalkii aan hooyo aabba ka dhaxalnay adii markaa isbitaalka gashay dhaxalkii aa bulaalay xoolahan ilaahay ka dhigay alxamdulilah iska joogtaa guriga maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay aragtay asagoo taleefon ku hadlaayo weligeed ma dhegeysan jirnay laakiin maanta dhegaheeda intuu hadal ku dhacay ay sii dhegeysatay asagoo dhahaayo ma iga dhaaftiin wax soo dila ay tirahdeen waa soo dilaa wax soo dil waa soo dilaa bas xataa heer waxaa igaasisay inaa labada gabdhood inaan soo dilo marka labada gabdhood oo saqiirada ahaa markaan soo dilaayay aniga markaas ka bacdi aan go-aan gaarib inaan wax kala dilin maanta wax soo dilla ay jirto wax ma soo dili kara iga daaya waxay labadan gabdhood oo saqiirada ah ma gabdhahaagiya kole waa gabdhahaagi waa u fikirtay waxay samaysay daroogada asaga ileen darooga iyo qashna walaalkas ka daba wadaaya daroogada naftigiis oo guriga keenay inta u qastay yaa cabitaan ugu dartay oo markuu caawiyo kala dhacay kursiga kalen ee xirxirtay mindiyaalka waaweynku hilibka lagu jarjartana inta usoo afaystay usoo qaadatay markuu soo naaxay waxay jiraaye adaanku sugaya ma soo kacday suuraha iga fur maxaa xirgaan igu xirxirtay labo inaa nafta ku dhaafiyo in wixii jiro aad ii sheegtid waana ogtay tirnaa qof waalanahay msuntaani waalida igu jirto maha aniga qof waalanaan ahay hadda iga soo bixisho meesha waalid caadi ligu celina qof igeenaayo xabsi mase idilaayo ma jirto inaa qof waalanay ku dishay labo in naftaada hadaad rabtid runtii ii sheegtid haddaa naftaada rabin inaan ku dhaafsiiyo sheeg gabdhahaygii maxaa ku samaysay wuxuu yiri gabdhahaagii yiri haddaa runta ka hadloo yiri anaa dilay sababtaa u dishay maxay tahay marka gabdhahaygi waxaan u diluu yiri aniga qolo daroogeystaan galay daroogaan gadgadaa qoladiina nin sixroolay ku xiran yihiin ninka sixroolahan wuxuu soo sheegay in aniga laba gabdhoodoo yaryara ah ya walaashay inay dhashay intaan walaashiisa labada gabdhoodoo la raadinaya in la dilo walaashiisaaba dhashay marka labadaas gabdhoodoo lasoo dilin xoolaha iyo maalka iyo daroogada iyo waxaa raadinaysiin ma idin samayn karno marka ninka sixroolaha weynka ahaay wuxuu yiri labada gabdhood wiilkan walaashisa dhashay waanu soo dilaa marka habeenkii aad qabteen dhalashada gabdhaha loo dhigaa 3 sano buuxinayeen ayaanba wuxuu yiri markaa qolka geliso soo seexis gabdhaha mid ayaan barkan kusoo dilay marka mid dhimata aan arko yiri qalbigayga isiibay mid kale inaan ku dilo marka wuxuu yiri naxtintii ahays aan la orday mid labaad waxaan islahaa yiri bas waa mid daadish oo iska ka dhaafi doonaan waxay dhaheen yiri mid waa soo dishay waana mid kale soo dishaa muddo waxay daba socon mid kale waana soo dishaa marka dambe waxaan go'aan ku gaaro yiri inaa idin dhawo yiri waxaan idin geenaa meel dalxiis ah jawiga soo bedeshta sadmada idin heshay naxtinta shoogi wixii dhan akroonaatiin idinkan daacada umaleysin maadaama ana lacagta idinka bixinayo markaa idin geeyna aan dhahayn gabadha waa la galaa biyaha waaskadane oo ku ciijiisa u dhimato subxaan allah markay dhimato waxaa isaga dhigo yiri biyaha inuu ku fakatay gabadha ya markaa saasaan ku dilo anigana ma rabo inaan dilo laakiin lacagtaan shaydaan waa lacagtaa i qaaday lacagta la ii sheegay malaayiintada aan helay ayaa i qaaday naag waalna ibnu gabadhaan hooyo waxa ogtay hooyo oo ewelba ilmaheeda ku shoogtay oo haddana lidi ilmahaagii anay baaba dilay lacag darteedana u dilay maxaa soo bileedahay ewelbayba waalneed maho tooreedii ay qabatay intay qabatay jubdhe biliiskii wixii markay yimideen guri shaqaalaa jooga shaqaalii isla qayliyey biliiskii wixii yimideen ee gabadhii la wadan waxaa la geliyey meesha dadka waalid waxaa la waa waalanta dhaktaradeeda markay soo ranaato qofka dhakhtaruu leeyahay dhakhtarkaa wareysanaya dhakhtarka wareystay ayaa ka qortay marka
meesha waxay say ka bilaawatay markay soo roonaato say u bilaawatay ya historigeeda iyo meesha ku dhamaatay ayadaa sheegtay walaalkeed inay saas u dishay ayadaa sheegtay ilmaheeda saas loo dilay ee ku waalateen oo ninkan ka dhintay hooyadeed dhimatay asagana usoo hirinay labadeeda gabdhood dileen waxa dhanba asaga ka dambeeyeen ayadaa sheegtay subxaan allah ya wala nacal abuugto mucjizo waaye maxay mucjizo ahaaweys ya bismillaah ilaahu naga soo adeejin ilaahu ummadda naga soo adeejin lacagtan qaado xoolahan qaado soo dil hooyadaa soo dildaa soo dilay walaalaha soo dilay ilmahaaga diloo dilay xoolo waa shaydaan waa xoolahan ilaahu noogu qaadin subxaan allah see qalbigay keenaa ilmo walaalkay dhalay inaan dilo qalbigayga soo isiinaa kaas nafsadiis ilmihiisa dilacta wuu dil lahaa maleyna wallahi mucjiso baa mistirin subxaan allah qisadaan maanta intaas ku eg tahay khayr badanaa idin dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laakiin hal mid aan idinka codsanaa share like subscribe qisadaas aan iskugu soo gudbinaa anoo allergy ahaayo dhegeysaan yihiin qisada idin soo gudbiyaa anoo hurdaysan waa idin soo gudbiyaa anoo shaqaanoo ka daalan idin imaado idin soo gudbiyaa ee soomaaliya naga daayay hadina kana dad fiican iska dhiga walaalahayo khayr allah idin siiya iska saara subscribe waa taqaaniin farta free le waayo wax lacag idinka qaadayo malahan anna waxay ii tareysaa idinkane maasha allah dhiirigelina ay naqanaysiin idinkan wax ma idinka dhibto anna waa igu dhiirigelinaysiin ilaa meeshaan soo fadhiistay wallahi waa daalana shaqaa ka imid indhahayga xataa allergy xuna ahaayo allergygina waa igu kacsiya shaqo waa ka imid waa ka daalana saasay tahan waa rabaa qisadii aan maqlo inaan idin soo gudbiyo oon soo turjubaano yaa soomaali idinkaga soo dhigo idin soo gudbiyo maasha allah waa soo gudbina saa yeelahe kolay mar uun iska kee bara doontiin insha allah mar uun dhihi doontiin samsam qisadeeda waatanaa sug samsamaa qisa soo wadaa sax maa insha allah biidnillah kariim khayr badan ay dhaafay caafimaad cimri dheer cibaado suuban kulligeen soomaali meel walboo joogno ilaahay caafimaad cimri dheer cibaado suuban allah noogu hayo sharti iyo shaydaankan allah naga xijaabo walaalis jecel allah naga dhigo waabis jecelnahee yaa ee quluubteena ilaahay hasku soo dhaweeyey inta dhimanne ilaah isku keeno insha allah soomaali mid allah ka dhigo kor allah naga wada dhigo caafimaad cimri dheer cibaado suuban ilaah noogu baryo kulligeenaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu